kastoo gobolka ka qabsoomaya weliba xeebaha maaragtaa arrinkiisu yahay hormuud baan ka nahay maftaaxa cid naga qaadi kartaa ma jiro dalka Soomaaliland maanta wuxuu ku jiraa meel halisa wuxuu u baahan yahay badbaado badan lug hayaad ee laga bixiyay saldhigga military innaba inaanan anagu raalli ka ahayn mulkiilayaasha lug hayaad kolkaan run isku sheeganno waa kuwa shirweynaha mideeye ee beelaha Bahawar Muuse oo muddo bila ka socday deegaankeeda Catay iyo maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyay waxaana kulankaasi laga soo saaray war murtiyeed munaasabad ballaaran oo si habsami leh loo soo agaasimay oo ka dhacday degmada Lughaya ayaa waxaa si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay guud ahaanba shirkaasi waxaana halkaasi laga dhawaaqay go'aamadii ka soo baxay shirkaasi shirweynaha beelaha Bahawar Muuse ee mideeye kuna taariikhna lixdii bishii labaad 2024 socdayna ilaa 27kii bishii labaad 2024 war murtiyeedkii ka soo baxay waxaa lagu soo koobay qodobadan soo socda 1 beelaha Bahawar Muuse waxay isku raaceen adkaynta midnimada wadajirka iyo iskaashiga beesha dhexdeeda 2 beelaha Bahawar Muuse waxay cadeynayaan in aanu jirin wax wada hadal ah oo dhex maray beelaha Ciise oo ku saabsan arrimaha gobolka sidii ay hore u cadeeyeen cuqaashii beelaha Gadabuurs 3 beesha Bahawar Muuse waxay ka soo horjeedaan wax kasta oo lagu wiiqayo nabadda cariga Soomaaliland ee ay beeshu si gaar ah u degto sida degmada Lughaya Saylac Alixayd Baki iyo Boorama 4 beelweynta Bahawar Muuse ee degmada Lughaya waxay ku baaqaysaa beelaha deriska ah deris wanaag walaalnimo iyo wada noolaansho iyo ka hortagga wax kasta oo dib ku keenaya beelaha dhexdooda 5 arrimaha badda beelaha Bahawar Muuse oo ah cidda kaliya ee wax laga weydiin karo degmada Lughaya iyo badeedaba waxay beeshu soo dhaweynaysaa wixii horumar iyo maalgashi ah ee ku saabsan wax ka qabashada badda sida deked ganacsi kalluumaysi iyo horumar ah waxay beesha Bahawar Muuse si xoog iyo mug leh uga soo horjeedaa una ogolaan doonin saldhig military oo laga siiyo ciidamada Itoobiya oo ay heshiis la gashay dawladda Soomaaliland waxay beelaha Bahawar Muuse si xoog iyo mug leh uga soo horjeedaan saldhigga military ee laga siiyay ciidamada Itoobiya degmada Lughaya waxaan ugu baaqaynaa dawladda Soomaaliland inay taageero mug leh u fidiyaan dadweynaha degmada Lughaya oo wali ay haysato saamayntii ka dhalatay duufaanadii Sagar iyo abaarihii isxigxigay iyagoo aan waxaan helin wax taageero ah oo ku filan wadooyinka isku xidhan degmada Lughaya oo aan helin wax dayactir ah iyo dhismaha intay Soomaaliland jirtay waxaan codsanaynaa si degdeg ah in wax looga qabto waxaan madaxtooyada Soomaaliland uga fadhinaa inay fuliyaan ballanqaadkii ku saabsanaa dhisidda deked kalluumaysi ee degmada Lughaya kaasi oo uu dhagax dhigay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo xilligii muddaxileedkiisii beelweynta Bahawar Muuse ee degmada Alixayd iyo Lughaya Baki Boorama Saylac waxa ay si xoog leh u cadeynaysaa in aanay ka tanaasuli doonin dhulbeeroodkoodii caada ee ka maqnaa muddada dheer inta ay Soomaaliland jirtay arrinkeedana wax la iska weydiiyay meelna la isla dhigay beelaha Bahawar Muuse waxa ay ka maqan yihiin dhammaan hay'adaha dawladda waxa dawladda uga fadhinaa inay arrinkaasi wax ka qabato saamigoodina ka helaan beeshu waxa isku raacday ilaalinta deegaanka dhirta duurjoogta iyo khayraadka dabiiciga ah ee deegaanadeeda waxa ay beelaha Bahawar Muuse shir wada tashi ugu baaqayaan beelaha walaalahooda ee Maxamed Case qabanqaabiyaashii shirka oo aanan magac dhabi karin muruq maal iyo maskax waxay geliyeen sidoo kale haween dhalinyar iyo dhammaan oday iyo inanba intii ka qayb qaadatay waqtigii qabanqaabadiisa socotay iyo waqtigii hawshii socotay guddi farsamo haday tahay mid kale haday tahay waxa kale mahad ballaaran u jeedinaya maamulka degmada Lughaya uu hormuud u yahay maayirka degmadu oo si mug iyo laxaad leh muddadii shirkaas socday noola shaqeeyay
mar walbana heliyo hoolaag taagan ee dhaqanka waxaa kaloo uga mahadnaqaya halkan ciidanka milatariga ee saldhigoogu yahay lughaya oo iyaguna wada shaqayn iyo waxqabad walaalnimo aan leenahay intaa kadib waxaanu halkaas saalka iska daba qaatay qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka deegaankaasi waxayna yidhaahdeen shirweynuhu sida la sheegay go'aamadiisa iyo wixii ka soo baxay waa ka shir murtiyeedka lagu akhriyey waxaa intaa dheer dalka somalilan maanta wuxuu ku jiraa meel halisa wuxuuna u baahan yahay badbaado waxaannu diyaar u nahay cid kasta oo somalilan wadajirkeeda weerar ku ah ma soo dhowaynayno waananu ka hor jeednaa intaa bacdigeed sida loo sheegay waxaa naga madnuuca oo xaaraana saldhig ciidan oo dal aan deris nahay ah weliba dawladaha deriskii saldhigyo ma kala samaystaan waa shuruucda u taalla caalamka sidaa darteed somalilan oo dhan baan leenahay ma anfaco bays ciidan oo etoobiyaanii meel kastoo dalka somalilan ka mida ma anfaco sidaan taayada u diidnaan kuwa kalena ugu diidayna insha allahu tacaalaa taasi waa intaa waxaa kaloo halkan farriin uga gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaannu leenahay madaxweyne waad og tahay maanta halka uu dalkii marayo waad og tahay maanta wax kasta nin kasta oo cadow ku ahaa somalilan inuu weerar ku soo yahay waad og tahay gobolladii yalkay kala marayaan waad og tahay waxa ku xeehan dalka sidaa darteed waxaannu leenahay baaqa iyo shirweynaha iyaga waxaa ka soo baxay dhega u yeelo marka koowaad waxaa kaloonu leenahay deegaammada annaan ka tanaasulayn sida caadda 3 jeer baad ballan ka qabatay waxaad nagu xidhay in aan wada hadalno annaga iyo tolkaa way diideen inaan wada hadalno 2 jeer 3 jeer baan ergo ugu tagnay way diideen waxayna ku doobinayaani waa adiga ka wada hadli mayna la yidhaha arrimaha caadda maanta annagoo dawladda intaa adigaan kuu dhiibnay hawshaad ka qabato uunbay ku ekaanaysaa haddaanad ka qaban beelaha bahabar muuse sidaa la sheegay go'aan bay ka gaadheen haddii ilaahay yidhaahdo xilligeedana cidi ka hor dhici mayso intaasina waa farriinaanu gudbinayna madaxweynaha waxaa kaloon leenahay wuu iska og tahay saamiyada dawladda uu maamulo madaxweynuhu wuu og yahay cid waliba waxa uu meesha agtiisa ugu yaalla cabasho mig iyo miisaan leh iyay beeshu halkaa ka dareensan tahay laakiin maanta rajo badan kama qabto waayo waannu ognahay halka ay kaa taagan tahay waxa weeye intaasi waa intaa wax kasta oo dalkeenna iyo deegaammadayada mushkilad ku ana ma yeeli doonno war ma yeelaynaa ma yeeli doonno war saxaafadeedka ka soo baxay horey baa loo sheegay waxaanan yeeli doonin oo si mug iyo miisaan la'aanan u yeeli doonin oon u sheegaynaa dawladda somalilan iyo madaxweynaha in saldhig ciidan laga siiyo degmada lughaya iyo agagaarkeega hababa yaraatee wax saldhig ciidana ayaanan oggolayn si mug iyo miisaan la'aan midna u oggolayn waan ka soo hor jeednaa yeelina mayno laakiin wixii dadka danwa ee ka baxsan saldhig la siiyo ciidanka maxaanku dhahaa etoobiya saldhig la siiyo wixii ka baxsan ee mafacale ee amba dikad la dhiso oo kale ah amba waxyaalo kale ah waan soo dhowaynaynaa cid walla oo maxaanku dhahaa wax ka qabanaysa waan soo dhowaynaynaa waxaan kaloon sheegaynaa dawladda somalilan sida ninkii aqalkii u horreeyeyba uu yidhi kolley waxqabad baa lagaaga baahan yahay beesha bahabar muuse iyadoo ay ka maqan tahay xilal dhammaantoodba ay ka maqan oo la arkiba ay ka maqan yihiin iyadoo oo duufaantii sagal ay raadkeegu ku yaallo degmada lughaya oon hababa yaraatee waxba ayna dawladdu ayna u sheeganaynin in wax loo qabto
dadkii duufaantaasi ay qabsatay oo weli bacaadkii fadhiya ayaa la yidhi bays ciidan baa in hor keenaynaa aqbali mayno laakiin waxaa loo qabta dadka qarniyada wixii hawl jirtaan kaga qisoodaye aan quraaro maantana tanay badhi quseeyaane allahayow qorshahan waad og tahay qaabka uu yahaye qaladiyo umaanan qasdiin shay khasaaraahe qarankiyo midnimadaan rabnaa inaan quwaynaaye qarankiyo midnimadaan rabnaa inaan quwaynaaye wixii naga qabyo baan rabnaa inay qabsoomaane qaraaradan saxeexniyo dhammaan qodobadan gaadhnay allahayow qumaatigaalow noga yeel qadir baa tahaye allahayow qabuul noga yeel qadir baa tahaye halkani waa magaalada lughaya badda xeebteedii baannu fadhinaa waxaan halkan ka caddaynaynaa baddan lughayaad ee laga bixiyey saldhigga milatari innaba inaanaan annagu raalli ka ahayn raallina aanaan ka noqon karayn marnaba aanaan oggolaanayn ciddii isku dayda in ay samayso waxaasina amba ay keento dalal kale annagoo nalagala tashan dadka degaanka ninna u daba fadhaysan mayno annagu dhulkaa ilaahayna dhigay annagaana naloo daba fadhaysan intaasi waa intaan u diraayo ciddii annaga nagu soo socota naf iyo maal iyo muruqna diyaar baannu u nahay wixii qaldan eyna ummadda u cuntamayn inaannu ku dhimanno muruqayaga iyo maalkayagana aan ku bixinno diyaar baannu u nahay haddaannu nahay beelweynta baabar muuse annagu cidna duulimaad kuma nihin waxaan xaggan ka caddaynayaa beerahaa caadda in badan bay hadalkoogu uu socday waa sidii odayadii hore ay ka dhowaajeen beelweyntu meel bay arrinkeega dhigatay ninna u daba fadhaysan mayno ninna ka baryi mayno annaga ayay noo taallaa taladeedu meelna waan dhignay halkan imminka waxaan ku soo dhowaynayaa ugu dambayntiina waxaa kulankaasi soo gebagabeeyey suldaan abshir maxamed ducaale islamarkaana ka sheekeeyey maraaxiishii kala duwanaa uu soo maray shirweynahani wuxuuna tilmaamay warku waa kaa dhammaaday baabar muuse qodobka ugu adkaa ee markii dambe meel iska wada taagtay waa qodobkaa la sheegay waxa weeyaan dawladda kama hor jeedo oo calankii buluuggii aan ku dagaalami jirray kii beddelay waa kaa gobolkuna ma odhan wax kale aan ku beddelanno annaguna ma odhananno saasaan dawladda somalilan u nahay laakiin saldhiggaa baabar muuse intii kalena waxay isku raacday inaanay oggolaan siday dee iskugu raaceen inay ugu dhintaan iyo inaad ka dayso labadaanbay mid noqon taasi waxaan leeyahay baabar muuse faanka ma taqaan faan baana immiga badan beesha mulkiilayaasha lughayaad kolkaan run isku sheeganno waa kuwaa cid walliba lughaya way ka qaxday cidda aan ka qixin dagaalkii sokeeye wixii alla soo reebay uun arkay waa kuwaa sidaa awgeed bay dagaal dambeba u necab yihiin imminka dee wax qabsaduun mooyaane waxaan leenahay madaxweyne dadkaagu waa kaayoo maxaafid buu kuu yahay waxna si iyo waxaasina wuu badnaa halkaa waxba rajo badan dadku kama qabo waase dee la hadli dadkani xoololey bay ahaan xoolay ku noolaayeen xoolihii dagaalkii laga soo bilaabo dagaalkii bay ku madheen
dadku inta badan magaalo iyuu iskugu yimidda inkastoo baadiyuuna noo jiro waxa weeyaan kolkuu magaalo iskugu yimidday lugaya waxay aragtaa qolo wafdi oo socota habeen hawl badan unbay aragtaaye dawladba ma aragtaba haddana waa kuwa iska iimaan qaba wixii lagaga bixi lahaa xoolay lahaan jireen oo lugooyo badba hore umay baran imigay nafi tustay waa kuwa laashashka aad arkayso waa kuwa halkaa yaalla baddaa lusha meel yaroy ku xidhaan male waa dhowayd baad soo qaadoo waxaad tidhi waar baac mushtariga awdalow malyuun halkaa ku soo rida annaguna waan ku darannaaye taasi way jirtay tu kale oo xildhibaannada gobolka ay maaragtaa miisaaniyadda horta waxaa la yidhi gobolka gebigiisaba wax uguma jiraan warqaday ka daba keeneen oo isku raaceen kuwii awdal iyo kuwa bari iyaa jiro oo dekadda lugayaad ku dar lagu yidhi warqaddaasina way qoran tahay miisaaniyaddiina weli maad saxiixin inaad taa ku darto taasaa ka cantuuga roone iyo haddaad ku dari weyda inaad tii kaleed ballan qaadday wixii aad ku darasay aad ku darto waa kii isliibkii ay kuu keeneen baac mushtarigu waa kii ku yidhi malyuunkaadna weyddiisay waa naga keennay ee warqaddii ay kuu keeneen labadaa arrin mid fuli waxaan leeyahay waxaa la yidhi nin baa la yidhi war ninkaama waxbaa ka yar si'a laba nin baa ku marantay waar hebel sidii maaha iyo hadalkaa ku batay iyo maxay waxay yidhahaan xeedhaha la hor dhigo oo laba fundhaala lagu rido hadduu miyir qabo miduunbuu ku cuni hadduu waala yahay labadaba wuu ku cuni oo uu darandoorrii ninkii baa markii la hor dhigay labadiiba darandoorriyaa la yidhi kolkaasay day labadii nin isku raaceen inuu ninku waalan yahay waxa weeyaan waxaa la yidhaa halkan xukuumado badan baa dee soo maray ood aduu ka midtood u dambaysay iskuma dhaamaan degmadaa lughaya iskuma dhaamaan dhibaatadii baad arkaysaa ma garanaysaa dhibaatadii hore dagaalkii tiftiisii baad magaalada ku dhex arkaysaa cunaqabataynta inta badan xagga maaliyadda iyo xagga shaqadaa ee gobolka saaran malaa gebilay unbay ka ladantao bahashii booramo oo astaan dawladeed lagu arkaa gobolkayaga inta kale way cumaqabataysan tahay oo dadkaagaa cumaqabataynta ka saaro malaa lamaba dherge'e labada fundhaalba ku cuno oo laakiin malqaacad yar u dara waxaa kaloo sheegayaa dadka walaalahaya ah ee bariya galbeedba wuu jiraaye dad walaalahaya ah iyaa jiroo shir bay ku baaqeen iyo wax la yidhaha annagu shirka ammaannu arag shir kastoo gobolka ka qabsoomaya weliba xeebaha maaragtaa arrinkiisu yahay hormuud baan ka nahay maftaaxa cid naga qaadi kartaa ma jiro cid maftaaxiisa naga qaadi kartaa ma jiro arrimaha inta xigtadu ila leedahay waanu geyn waa brayn oo kalea xigtada ah inta tolka kale ila leeyahay ilaa bahabar xoli inta gobolku ila leeyahay maanta intaan ka hadlayaa waa intaan anuu gooni u lahaa waxaan leeyahay walaalahayna waxaan leeyahay waar shirka ninkii shir doonaya waxaa la hadalhayo in maaragtaa la yskaga yimaado doonaya dad dibaduhu ka soo qooqay baa jira gobolkaba ha u dhashaan oon dadkooga war u hayin haddaad tala haysaan gobolkaad ka dhalateen kaalaya kuwa kalee dabagaalle abeeso dushaasu ka qaba la yidhaha ciidamay ururiyaanoo waxbay ku duulayaan la yidhaahna waar halkan annagaa joogna wax lagu soo duulaa ma jiro waxa weeyaan annaguna somalilan la dagaalami mayno haddaanay shuruuddaasi aanay iman waxa weeye ciddii arrin u baahanay gobolka iyo xeebaha ciddii arrin meeshay sayl hadday tahay meeshay doontaba waan tegi laakiin meel ka baxsan xeebaha oo shir la iskugu yeedho yeeli mayno intaan baan ku soo koobayaa salaamu calaykum mu'miniinta iyo muslimiinta allah u dambi dhaafo madar khayr